Odayaal waxaan idin hayaa 11 qof oo aan inaba caadi ahayn oo dunida korkeeda ku nool. Ngoc Tai waxa uu dhashay dalka Vietnam sanadii 1973 ayaa waxaa ku dhacday xumad xun kadibna dib hurdo umuusan seexan si kama dambaysa si walba oo la isugu dayay isagoo mar walba soo jeeda ayaa haddana dhakhtaradu sheegay in hurdo la'aantani aysan waxba u dhimayn ilaahay amarkiis jirkiisa waxaana maalin walba waxa maalaa 2 kiisho min 50 kiilo oo cunno lagu quudiyo doofaarka goobta uu ka shaqeeyo oo jirta 4 kilomitir haddana jirkiisu ma dareemo daciifnimo waxaana daawooyinka hurdada oo lagula tacaalay waxba u tari waayeen mana seexin tan iyo sanadii 1973 Daniel Tammet waa mucjiso lagu tilmaamay Asperger oo nooc ka mid ah cudurrada autismiga ee fudud ninkan dhalinyarada Ingiriiska u dhashay ayaa wuxuu ka badiyaa mashiinada wax xisaabiya waxaana ilaahay awood u siiyey maskaxiyan oo la yaab badan maadaama 14 Maarch 2004 oo iyadoo ay goobjoog yihiin xaakimyo hubinayay maskaxdiisu uu kor ka tiriyay 22,514 xisaab xirmeedka 10 leyda ah waana awood maskaxeed oo ilaahay siiyey oo lagu magacaabo synesthesia waxaana la sheegay inuu arkayo raqamyadaasi midabyalo oo dahsoon oo cidna arkayn waxa kaloo la sheegay inuu xallin karo kor ka xafidi karo xisaab walba oo la weydiiyo wuxuuna baran karaa baa la yidhi afaf aad u tiro badan waxaana inta badan laga dalbaa jaamacadaha oo si weyn loo xiiseeyo awoodaha gaarka ee hibooyinka ilaahay siiyey waxaana la sheegay cudurka autismiska ee wiilkan haysta inuu ilaahay ugu bedelay hibo gaara oo wax walba uu kor ka xafidi karo uu ka sheegi karo Manx Yangaga waa nin inaba aysan wax u dhimayn marka uu taabto korontada maaha kaliya inay korontadu aysan qabsanayn balse waxa la sheegay inuu awood dareemayo marka uu korontada qabto waxaana la sheegay in korontadu aysan waxyeelayn Max si kasta oo u taabto wuxuuna awoodaa inuu adkaysto ilaa 100 volt inta badanna waxa uu si weyn u soo bandhigaa isaga oo koronto qabanaya si uu u muujiyo awoodda iyo hibada ilaahay u siiyey inaysan korontadu inaba aysan waxyeelayn jirkiisa Daniel Kish waxa uu dhashay sanadii 1966 dalka Mareykanka waxaana la sheegay in ilaahay awood u siiyey inuu kaligiis ishagi karo maadaama uu yahay qof ku dhashay indhala'aan haddana waxa la sheegay inuu meel kasta uu aadi karo kaligiis isagoo carabka dhagaca ka siinaya waxaana la sheegay in magnet aan la arkayn uu hagayo sida fiidmeerta oo kale waxaana la sheegay inuu ka leexanayo caqabad warba oo la hordhigo waxaana lagu magacaabay ninkii fiidmeerta ahaa waana hibo ilaahay siiyey oo gaara Kevin Richardson waxaa la sheegay inuu awood u leeyahay oo uu siiyey ilaahay awood u la hadli karo xawayaanka duurjoogta kuwooda wax cuna ee khatarta badan sida libaaxyada dalxawga iyo shabeelka waxaana la sheegay inuu dhigaha wax ugu sheegi karo waxaana la sheegay inuu la saaxiibi karo xawayaan walba uu la kulmo waxaana la sheegay inay tahay hibo ilaahay gaara uu siiyey isaga oo markaasi kula saaxiibayo xawayaanada Hugh Towlin waxa uu ahaa qandaraas qaate 80 jir ah oo howlgab noqday waxaana la sheegay inuu ku dhajin karo jirkiisa ashyaada birta iyo macdanta ka samaysan sida magnetkana uu soo jiidan karo waxaana la sheegay xitaa inuu ku jiiday baabuur dhakhtarada baaritaanka ku sameeyay jirkiisa waxay sheegeen inaba aysan arag wax ka gedisan dadka caadiga waxaanaysan sheegay inay micnayn karin maadaama uusan jirkiisu lahayn magnet waxaase ka sii daran caruurtaysa iyo caruurta ay dhaleen ayaa iyaguna hibanaro kale leh waxaa kaloo la sheegay inay sida magnetka iyaguna ay u qabsanayaan macdanta oo dhan waxaana loogu magacdaray ninkii magnetka ahaa waxaana la sheegay in dhakhaatiirta isaga jirkiisa baadhay ay waayeen inaba wax uu kaga gedisan yahay dadka caadiga ah waxayna sheegeen baaritaankii ay ku sameeyeen inay jirkiisa ka waayeen wax magnet oo gudaha ugu jira waxayna sheegeen in lagu micnayn karo oo kaliya inay arrinkani tahay mucjiso rabbaaniya oo ninkan ilaahay gaar u siiyey isaga iyo weliba tafiirtiisa waxayna sheegeen inaan dunida lagu arag nin noocan oo kala uu yahay hibo gaar oo ilaahay uu dhulkan keenay Wim Hof waa nin u dhashay dalka Ireland waxaana loogu magacdaray ninkii barafka ahaa iyadoo laga tixraacayo hibada ilaahay siiyey oo aynu u adkaysan karo barafka iyo qabowga daran wuxuuna jebiyey 20 rikoor oo dunida ah sanadii 2002 ayaa waxa uu ku jiray 6 daqiiqo iyo 20 ilbiriqsi biyaha barafka badan ee poolka oo inta badan lagu dhinto qofkii daqiiqada kaliya ku jiray
Slaviska Pachkik waxaa loo bixiyey ninkii baytariga ahaa, wuxuuna taaban karaa xadhkaha korontada ee 20,000 oo volt, waana aabbo Serbiyaana oo Ilaahay hibo u siiyey aan cid kale la siin hibadiisa oo kale. waxaanu qaban karaa korontada culus, waxaanu ku kaydin karaa jidhkiisa oo markaa loo baahdo uu shidi karo laambadaha iyo motoorada, waxaanu wax ku karin karaa birta iyadu korkeeda isagoo isticmaalaya korontada ay jidhkiisu kaydisay. waxaana hibadiisa dareemay isagoo 17 jir ah, waxaana loo bixiyey ninkii baytariga ahaa, wuxuuna galay buugga mucjisooyinka dunida ee Guinness World Record. ninkan oo kale ayaa la sheegay inaanan dunida horey loogu arag mucjisada gaarka ee Ilaahay uu siiyey. Natasha Deminka waxay u dhalatay dalka Ruushka, waxaana Ilaahay hibo u siiyey inay indhaheeda ay wax u arkayaan sidii raajada oo kale. waxaanay wax ka arkaysaa jidhka bini'aadanka dhexdiisa, waxaanay sheegi kartaa cudurrada qofka ku jira ee arkayso iyadu. waxaana lagu casumay dalka Ingiriiska oo culimada saynisku ay qireen hibada Ilaahay siiyey gabadhan. indhaheeda sida raajada ay wax u arkayaan. culimada Jabbaan oo gabadhan tijaabisay iyaguna ayaa ka yaabay mucjisada gaarka Ilaahay siiyey. waxaana culimada saynisku ay micnayn waayeen sida ay ku dhici karto in gabadhan indhaheedu ay qofka u sawiri karaan jidhka iyada wax dhaafsiisan oo xitaa lafaha ay sawiran karto oo cudurrada qofka ku jira ay sheegi karto. waxayna sheegeen inay tahay hibo gaar ah oo qof kale Ilaahay uusan siin oo Ilaahay gabadhan uu siiyey. waxayna sheegeen inay sida raajada u sawiri karto waxa ku dhex jira qofka bini'aadanka oo indhaheedu ay uga tabayaan sida qalabka Rayon X-ka ama raajooyinka wax lagu sawiro lafaha oo kale. waxayna sheegeen in arrinkani uu yahay mucjiso gaar ah oo inaba aysan micnayn karin. arrinka la yaabka badan ayaa waxay tahay Daniel Koronik waa nin Ilaahay hibo u siiyey inuu sida laastiga xubnaha jidhkiisa u laalaabi karo, waxaana loogu magac daray ninkii laastiga ahaa. wuxuuna u jajabinayaa jidhkiisa si la yaab leh, wuxuuna ku xirayn karaa sanduuqyada yaryar, wuxuuna jidhkiisa oo dhan ku xireeyey shandad yar oo teeniska ah. waxaana la sheegay in qof bini'aadan ah oo dhulkan korkiisa ku nool uusan sidaa ninkan jidhkiisa u laalaabayo uusan u awoodin inuu u laalaabo. waxaana la sheegay inay tahay hibo gaara oo isaga Ilaahay si gaara u siiyey. waana arrin aad u yaab badan. ugu dambeyn waxaan idiin hayaa King Peck waxa uu xafiday 12,000 oo buug, waxaanu ku akhriyey page walba 10 ilbiriqsi. waxaa kaloo xafidi karaa baa layidhi xisaab walba iyo musig walba. waxaase nasiib darra inuu ku dhintay isagoo 52 jira. waxaan filayaa inaad jeclaysateen like oo la wadaaga asxaabtaada si aad ula socoto barnaamijyo cilmiyeysan oo soo socda mustaqbalka oo aad kala socon karto Xawataka TV.